Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya shaqada ka sii tagaya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta gudoomiyay shirka ugu dambeeyay golaha wasiirada kaas oo dib loogu eegay howlihii u qabsoomay xukuumaddiisa muddadii ay shaqeynaysay. Xubnaha golaha wasiirada ee kulanka ka hadlay ayaa Ra'iisul Wasaare Rooble uga mahadceliyay sidii uu hogaamiyo xukuumadda si gaar ah howlihii doorashooyinka dalka oo si guul ah oo nabad ah ku soo dhamaaday. dalkani wuxuu doorasho ku jiray 24 bilood abukaati Cumar Dhagay iyo xubnaha golaha gudahoosaadka siyaasadda loo dhan yahay way ka warqabaan sharcigii doorashooyinka oo muddo doodiisu socotay February baa aakhirkii la saxeexay baan filayaa 2020 markii loo dhaqaaqay hirgelintiisana kala aragti duwanaansho iyo fikir duwanaansho danaynayaasha siyaasadda ee kala duwan iyo labadii xafiis madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ku kala fikir duwanaaday iyo dawlad goboleedadii ayaa markiiba soo baxay June 2020 iyadoo xilligaas laga soo doogay haddana COVID-19 taasoo keentay ra'iisul wasaarihii hore inuu ku baxo iyo xukuumaddiiba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble doorasho inuu dalkan gaarsiiyo uu u yimaado waa halka ay tahay maxaynu ka baranay 24 bilood oo dal yar oo faqiir ah oo duruufaha ku gadaamanaya amni dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed mar walba aynu arkayno ay jiraan in haddana maskaxda iyo psychology-ga qof kasta oo fikiraya Soomaaliyeed mas'uul kasta oo fikiraya uu ku foogan yahay uu doorasho inay dhacdo waa doorasho 24 bilood socotay aniga aragtidayda 20 bilood ee dambana oo ra'iisul hogaaminayay waxa ugu weyn ka wada fikiraynay laga shaqeynayay siyaasi xildhibaan madaxweyne dawlad goboleed madaxweyne ra'iisul wasaare ay ahayd in doorashadaasi ay qabsoon. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa xubnaha golaha wasiirada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay sidii wanaagsaneed ay ula soo shaqeeyeen una rajeeyay mustaqbal siyaasadeed oo wanaagsan isagoo kula dardaarmay xubnaha golaha wasiirada iyo howlwadeennada in howlaha qaranka ay ku gacan siiyaan ra'iisul wasaaraha magacaaban iyo dawladda cusub. shaqadii la soo qabtay waxay ahayd mid aad u adag oo aad u dhib badan xaqiiqdii aadna ka war haysaan in la hirgeliyo doorasho aysan heshiis ka ahayn dhinacyada ku shaqada lahaa isla markaana aan waqti badan la gelin sidii ay u dhici lahayd ma ahayn hawl fudud laakiin waxa Allah subhanahu wa ta'ala uga mahadcelinayaa haddii ay guul noogu soo dhamaatay intii lagu jiray shaqadii adkeed ee la soo galay waxa hubaal ah in ay jirtay kala aragti duwanaan la xiriirtay shaqooyinkii socday haba ugu badnaadaan arrimihii doorashada oo ahaa kuwa qofba dhan ka eegayay laakiin waxaan hubaa in dhammaanteen aan doonaynay in ay wax hagaagaan sidaa darteed waxaan rajaynayaa in laabta la isu furo oo la iscafiyo dhammaanteen xubno badan oo golaha wasiirada ka mid ah ayaa xildhibaano soo noqday sidoo kale waxaan rajaynayaa in qaar badan oo idin ka mid ah ay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada soo socda hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo dhammaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidii wanaagsaneed ee Soomaalinimada ah ee walaalnimada ahayd oo aad ila shaqayseen anigoo idin rajaynaya mustaqbal wanaagsan iyo guul dheeri ah ballanteenu waa in qof walba oo naga mid ah uu dalka ugu shaqeeyo intii karaankiisa intii la nool yahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ugu horeeyaan BS-ka iyo BS ku xigeenka walaashay Faaduma technical advisorada xafiiska oo runtii shaqo lama ilooban soo qabtay intii hawsha ay socotay. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.